بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتاي كلنتي wanaagsan meel kasta oo aad dunidaad ka joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan eegi doonaa saaxiibayaal 20 naadi ee ugu qiimaha badan qaaradda Yurub 2022 saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto barteenan fadlan waxaan ka codsanahay waxa ay ka mudan tahay barteenan inaad noo samaysid waana ku mahadsan tahay saaxiiba jaanqaadkaaga kooxahan 20 ka mid ah waxa uu qiimaha badan kooxaha ka dheela horyaalka Premier League taasoo ugu jiraan kooxo badan oo yar u badan ayaa ku jira ku soo bilowmay horyaalka Premier League kaalinta 20aad waxa ku jira kooxda lagu magacaabo Aston Villa ee ka dhisan horyaalka Premier League saaxiibayaal waxay 750 milyan ku soo gashay kaalinta 20aad ay ku jidho markeedii afraad ee ka soo muuqatay qiimeynta 20 naadi ee ugu sareeya dhammaan qaaradda Yurub kaalinta 19aad saaxiib waxa buuxsatay koox kale oo ka dhisan horyaalka Premier League oo lagu magacaabo Leeds United qiimeynta ay ku gaadhay 19aad waxa ay tahay 800 milyan saaxiibayaal kaalinta 18aad waxa ku jira kooxda West Ham ayaduna ka dhisan horyaalka Premier League kana mid ah kooxaha ugu adag ama kooxaha ugu dhibka badan horyaalka Premier League waxayna 900 milyan ugu jidhaa kaalinta 18aad ayay ka soo muuqatay ayagoo ugu jidha 900 milyan kooxda Leicester City oo ka mid ah kooxaha ugu qiimeynta fiicnaa ee 20 naadi ee ugu weyn ama ugu qiimaha badan dhammaan qaaradda Yurub ayaa ka soo muuqatay kaalinta 17aad ayadoo ugu jidha 925 milyan waxa kaalinta 16aad buuxsatay kooxda Everton ayaduna ka dhasha horyaalka Premier League waxayna qiimeyntan ugu jidhaa 940 milyan kooxahan waxa moodaa in kooxaha aan hadda soo tirnay dhammaantood ay yihiin horyaalka Premier League kooxaha meel dhaxaad ah iyo kooxaha yaryar ah saas waxay ku tusaysaa in horyaalka Premier League uu yahay horyaal tayo leh horyaal qiimeyntiisa ay ka soo baxday 20 naadi ee ugu qiimaha badan dhammaan qaaradda Yurub inuu ka helayo boos fiican maadaama naadaasha yarka ah ee ka dhisnaa horyaalka Premier League ay qiimeyn fiican ka istaageen 20 naadi ee ugu qiimaha badan qaaradda Yurub marka saaxiibayaal waxa kaalinta 14aad ku jira kooxda kaalinta 15aad ku jira naadiga lagu magacaabo Inter Milan oo qiimeyntan ugu jira 1 milyan oo taas oo tahay naadi weyn oo ka dhisan Serie A waxayna ku tusaysaa liidnimada ka muuqata in Serie A maadaama kooxaha ugu hooseeya ee horyaalka Premier League ay wax yar u jiraan ama wax yar ay dheeryihiin qiimeynta lagu sameeyay kooxaha Ingiriiska iyo kooxaha lagu magacaabo Serie A iyo dhammaan qaaradda Yurub oo dhan kooxda ku xigta waxa kaalinta 14aad ugu jira qiimeyntan kooxda lagu magacaabo AC Milan oo ugu jira qiimeynta 1 milyan iyo 200 milyan marka saaxiibayaal waxaad ku tusaysaa in qiimeyntan ay meel hoose ka soo galeen kooxaha lagu magacaabo Inter Milan iyo AC Milan ayagoo ka mid ah kooxaha ugu tunkoon adduunka kooxda 13aad waxa booskaas cirisatay kooxda lagu magacaabo Atletico Madrid ee ka dhisan horyaalka Spain ee La Liga kooxdan ayaa qiimeynta la sameeyay 2022 waxay 1.5 milyan ugu jidhaa qiimeynta laga sameeyay 20 naadi ee ugu qiimaha badan dhammaan qaaradda Yurub waxa kooxda 12aad ku jidha kooxda Borussia Dortmund ee ka dhisan Bundesliga Germany ayagoo 1.8 milyan ugu jidha qiimeynta 12aad saaxiibayaal kooxda 11aad ku jidha qiimeynta kala sareynta 20 naadi ee ugu qiimaha badan dhammaan qaaradda Yurub waa kooxda Arsenal ayadoo 2.05 milyan ugu jidha qiimeynta 11aad kooxda Gunners oo ah kooxaha ugu weyn ee horyaalka Premier League iyo qaaradda Yurub kooxda 10aad ee ku jidha booska 10aad waa kooxda Tottenham Hotspur oo qiimeyntan ugu jidha 2.35 milyan ay qiimeynta ka soo gashay oo booska 10aad ku buuxsatay kooxda lagu magacaabo Tottenham Hotspur kooxda Juventus ayaa qiimeynta ka gashay kaalinta 9aad ayadoo ugu jidha 2.45 milyan
waa kooxaha ugu waaweyn dhammaan qaaradda Yurub. waxaa kooxda sideed ku jira kooxda Chelsea ee Blues kuna dhasha garoonka Stamford Bridge ayaa qiimeyntan ugu jira 3.1 milyan oo ah kooxda sideedaad ee ugu qiimaha badan dhammaan qaaradda Yurub. waxaa kooxda Paris Saint-Germain ay cirisatay booska toddobaad ayagoo qiimeyntan ugu jira 3.2 milyan, taas oo ah kooxaha ugu maalgashiga badan dhammaan qaaradda Yurub. waxaa kaalinta lixaad ka soo muuqata kooxda Manchester City, qiimeyntooduna waa 4.25 milyan ayay qiimeyn ahaan lagu sameeyay kooxda kubadda cagta Manchester City. waxaa kaalinta shanaad ciristay saaxiibayaal kooxda lagu magacaabo Bayern Munich ee ka dhisan horyaalka Bundesliga ee dalka Germany, waxayna 4.275 milyan ugu jiraa kaalinta shanaad. waxaana kaalinta afraad saaxiib markaa soo carisaday kooxda dhibta badan leh ee Liverpool kuna dhasha garoonka lagu magacaabo Anfield, waxayna 4.45 milyan kusoo gashay kaalinta afraad ee kala sareynta dhammaan qaaradda Yurub. Manchester United ayaa qiimaha gashay kaalinta saddexaad, waxayna 4.6 milyan ay kusoo fariisatay booska saddexaad. waxaana ugu sareeya oo factor ku jira kooxaha reer Spain ee Barcelona iyo Real Madrid, halka kooxda Barcelona la dhigay kaalinta labaad iyadoo qiimeyntan ugu fadhida 5.1 milyan, halka kooxda Real Madrid ee caadka oo sanadihii la soo dhaafay ka samaysanaya dhammaan qaaradda Yurub waxa ay doonaan iyaduna ay ku fariisatay 5.1 milyan, taas oo ayna kooxda reer Spain ee Barcelona iyo Real Madrid ay yihiin kooxaha ugu qiimeynta fiican sanadkii aan hadda ku jirno amxaagii la soo dhaafay ee 2022. saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin dhegeysigiina. haddii aad weli la sii joogtid waxaan kaa codsanaynaa inaad waxa uu ka mudan yahay channelkan aasiisid, waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga.